ereyga sanad guuro waa mid la wadaago balse kala ahmiyad badan. maalin kasta iyo sanad waliba waxaa la xusaa munaasabado kala qiimo weyn, magac iyo abaalmarinba. waxaa la xusaa maalmo ciid u ah muslimiinta diiniyan. wixii ka soo hara ee xaflada ah waxaa lagu qiimeeyaa waxa la soo bandhigo iyo saameynta ay leeyihiin. shabakad ayaa xuska sanad guuradeeda ku bixisay gargaar halkii ay qarashka ku bixin lahayd hotel. hay-ado kalena waxa ay xuskooda ku dhigeen oo qarashkooda uu oga baxay hotel. isbarbardhig farqiga u dhaxeeya. haddii aan milicsado dulicda warkayga, idaacadda Risaala oo la aasaasay 24 Abriil 2011 ayaa maanta u dabaaldegaysa sanadkeedii labaad. Risaala munaasabadeeda kuma dhigan hotel, ma wareysan mas-uuliyiin ka hadlaysa sanad guuradeeda darajada ay doonaan ha lahaadeene, laakiin waxa ay qarashkeeda ku bixisay sidii loo gargaari lahaa dadka liita iyo in dhagaystayaasha la abaal mariyo. tani waxa ay ka dambeysay markii la ogaaday in munaasabadaha la dhigo ay soo gashay maalmo ay ka mid tahay maalinta farxalka, sidoo kalena la ogaaday in mas-uulka aad wacdo uu ku leeyahay hambalyo. Soomaalidu waxay tiraahdaa nabar aad filaysay xanuun ma laha. tani hadda waxa ay noqonaysaa hambalyo aad filaysay xiise ma laha. waa tan ku dhalisay warbaahinta Risaala inay la timaado isbedel si loogu daydo. idaacadda Risaala iyadoo ka jawaabaysa baahida bulshada kuwooda taagta daran ayaa maanta waxa ay qoodisay in ka badan 100 ruux oo ku jira 3 xarumood oo xarunta Ahlu Khayr ee daryeelka caruurta dayacan, agoonta iyo dadka dhimirka la ay ku leedahay magaalada Muqdisho. dadkani oo ay ka mid yihiin caruur da'doodu ay ka hooseyso 10 sano ayaa waxaa loo sameeyay qado heer sare ah, waxaana loo raaciyay dhar, kabo iyo lacag si maamulka iyo shaqaalaha idaacadda ay kala qayb qaataan farxadda maanta. intii aan ku sugneen xarumaha Ahlu Khayr waxaanu aragnay wiil curyaan ah oo aan hadli karin balse wax maqla, kaasi oo 7 sano ka hor laga soo qaaday meel wada ah sanadkii 2007 oo dagaalo ay ka soconayeen Muqdisho. gabar yar oo ka mid ahayd caruurta la qoodiyay oo ay ka dhinteen hooyadeed iyo aabaheed ayaan kala sheekaystay dareenkeeda. dareenkaaga ka war markaas ay arintan ku faraxsantahay? dadka la qoodiyo waxaa ka mid ah kuwa dhimirka la. mid ka mid ah oo u hadlay oo aad moodo in uu soo caafimaadayo ayaa muujiyay farxadiisa. meeshan waa meel yani agoonta iyo dadka masaakiinta ah loogu kalmeey kulay ayaga halihii macnaha dadkan macnaha muslimiinta meeshan jooga dadaal waa dadaaleen, laakiin idaacadda Risaala iyo maamulka islaamnimada waxaan ka rabnaa insha Allah dadka eheladeena qaar ayaa macnaha waxa waaye waa noo imaa waayeen booqashadii naga goosteen. marka insha Allah waxa waaye ilaahay waxa waaye kulligeena waxaan ka baryaynaa ilaahay jannada Allah noogu wada bishaareeyo, ilaahay naarta Allah naga leexiyo, ilaahay yani markaas ilaahay rubadana haysto oo dhibaatada jirta Allah naga feedo. ilaahay waa baryaynaa maanta insha Allah idaacadda iyo dadka muslimiinta oo soo booqday oo khayrkan oo yani loogan suubiyay sadaqadan la baxay alxamdulillah aadan ugu faraxnay. maadaama ay waxaan ka salaamaa dhammaan saaxiibihii oo wax ah bas intaas. agaasimaha warbaahinta Risaala Maxamed Cabdiwahaab oo ka hadlay munaasabad lagu qabtay xarunta Ahlu Khayr ayaa sheegay in maamulka uu garowsaday intii qarashka sanad guuradu uu meel kale oo aan faa'iido lahayn ku bixin lahaa in loogu gargaaro birimageedada. haddii aan nahay bahda idaacadda Risaala maanta sanad guurada labaad idaacadda markii la aasaasay soo wareegtay ayaan xuseynay. sida daraadeed waxaan go'aansanay inaan ka dhigno inaan ciyaalkan agoonta oo ku jira meeshan khayriya aan kala qayb qaadano, la qadayno iyo dadka dhimirka loo ayagana ciyaalkaas aan dhaamino dad dhimirka la ah inaan la qadayno waxyaalaha yar yar oo kaloo buugaag iyo haddii la kulmo dacas iyo waxyaalaha yar yarna aan uga dhigno hadiyooyin. sanad guuradeenu ay saas noqotaan go'aansanay maadaama yihiin wax loo baahan yahay isla markaasna dadku ay u baahan yihiin intii fantasiyo lagu dhigto la dabaaldegi lahay waxaa ka sharaf badan idaacadda Risaalana ay go'aansatay inay ilmahan carruurta oo agoonta oo dadka muslimiinta ay ku dhigtoonayaan ay xanaaneeyeen guryahan ku hayaan in arkane qadadaas ay u samayno. Cabdiraxmaan Macow Xaaji Maxamed oo ah maamulaha xarunta Ahlu Khayr
ee daryeelka carruurta dayacan agoonta iyo dadka dhimirka la ayaa sheegay in wax aysan filaynin uu ahaa kaalmada soo gaartay waxaana uu sheegay in idaacadda risaala ay tahay idaacaddii u horeysay oo qaado tallaabo lagu caawinayo bulshada maanta oo maalin Arbaca ah bisha afaraad ay tahay 24 sanada 2013 waxaa si naxariis mudan iyo sharaf iyo ciise iyo karaamo mudan ku soo gaarsiiyay deeq ma arkaysa aanan filaynin oo Ilaahay naxariisiisa timida idaacadda risaala oo maanta kamid ah idaacadaha ama saxaafadda ka howlgasha waddanka Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho iyo goboladeeda oo dhan idaacadda risaala oo ma arkaysa mar dhow la asaasay laakiin ka hormartay muddo yar ayadoo jirta idaacadihi ayadoo 20 sano iyo ma arkaysa 15 sano ka horeeyay aad ma arkaysa u dardargelisay dhinac kasta ma arkaysa kaga hormartay ayaa maanta waxay fikirtay inay ma arkaysa shacabka Soomaaliyeed kuwoodii aad ugu dhibaato badnaa sida xaruntaan oo kale 3 nooc baa lagu hayaa oo bulshada Soomaaliyeed ku ugu daraa dadka waalan oo miirku ka maqan yahay oo rag iyo dumar bale sidaad aragteen ee markaysa caruur waalan leh oo dariiqada laga soo aruuriyay kuwaas oo ehel iyo wax soo sheegan aan lahayn qaarkood aan hayno 12 sano qaarkood aan hayno markaysa 10 sano qaar 9 sano qaar 7 sano qaar 2 sano qaar 6 bilood 3 bilood aan hayno iyo agoonta oo ayadana maanta la garanayo Soomaali dhamaanteed inay agoomo Sheekh Umar Maxamuud Xerow oo tilmaam ka bixiyay faa'iidada ay leedahay sadaqada ayaa ugu baaqay warbaahinada kale inay ku daydaan Radio Risaala walaalayaal wax la isaga daysada waxa ugu fiican khayrka Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay fastabiqul khayraat aynama takunu ya'ti bikumullahu jamii'an war khayraatku u tartama meel walbo aad joogtiin Ilaahay subhanahu wa ta'ala asaga idin keenayo asaga idin xisaabinayo asaga idin ajir siinayo maanta idaacadda ar-risaala waxay u furtay idaacadaha kale baab cusub oo ah in loo tartamo khayrka la isaga daysado khayrka Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay wa ta'aawanu 'ala al-birri wat-taqwa wa la ta'aawanu 'ala al-ithmi wal-'udwan qofkii maanta tartamaya majaalka lagu tartamo ugu fiican waa majaalka bulshada ama muslimiinta wax loogu qabanayo maanta waxaan marxaati ka nahay hadii aan nahay culimada Soomaaliyeed inay albaab fiican ay ka soo galeen meeshii ummadda looga baahanayna ay ka soo baxeen waxaan haddaba u sheegaynaa idaacadaha kale inay idaacada ar-risaala uga daysadaan khayrka uga daysadaan waxaa badan maanta oo arkayna ama maqlayna in kharashaadka loo iilo meelo kale marka idaacadaha munaasabaad ay sameynayaan gaar ahaan meel fisqi ah iyo maxay ahayd muusika oo la garaaco iyo maxay ahayd bulshadii oo maxay ahayd waxyaalo aan khayr ahayn loogu dhawaaqo ama loogu baaqo marka waxaan walaalayaal aad iyo aad ugu baaqaynaa in meelahan looga daysado gaar ahaan dadka nugul oo ama dadka waalanoo masaakiinta ah runtii oo nabigeena calayhi salaatu wasalaam uu tilmaamay ويرهذا وهل ترزقون إلا بضعفائكم والموحال الذي كل إرزاقا إلا كو ضعفاء ماين ما شاء إن شاء الله تعالى إذا عضي مام الكذا ومتهنيننا سند جوردا طالقة وأيكم موجين وح أمضي يدلك يدينتي بأخير مالمها لحسو كلا حيسة بدن